aniga walaalkaaga ayaan ahay abaayo ha igubin inteen aadaa walaalkaagaan ahaye aabii hooyo in aan isdagaalsanaano way ka murugsan yihiin anigana ulajeedkayga ma ahayn in aan dhibaato kuu geysto balse hadda waxaan rabaa inaan ku xaliyo xataa lacagtaada waan kuu gudayaa mawduuceena kaliya DJ kuna soo biir adiga oo subscribe saaraya si aad wax badan ugu faa'iidid mahadsanid Nelson Mandela wuxuu yiri iscaafinta runta ah qasab ma aha in la iska ilaawo wixii horay oo dhan waana wax run ah hadalkan oo cafiska ma ahan daruuri in la ilaawo wixii horay oo dhan qisada maanta waa mid ka dhacday Suudaan waana khilaaf u dhaxeeya wiil iyo walaashiisa waan arki doonnaa iyada oo dhammaystiran laakiin marka hore aan soo dhaweeyno saaxiib ad-dacwa Calaadiin Cabdi Rasuul أهلا وسهلا على شوف ديسو إيغا وران عافمادكاغا سيدة تهاي waan fiicanahay alxamdulillaah أديغا مصر مياد سو دegtay haa masar ayaan soo degay إلaa iyo meeqo ilaa iyo 1 sano 5 sano waad isdagaalsantihiin adiga iyo walaasha way u dhowdahay 5 sano hadal ma jirin miya maya waad isgoyseen aanu sheega daawadayaasha calaa waxaa la dhalatay gabar 3 sano ka weyn oo aad u jecleed wayna ka taxadiri jirtay waxay ku saacidi jirtay wax walba uu u baahnaa mar uu xanuunsaday iyada ayaa daaweysay gabar uu jeclaana iyada ayaa u guurisay yacni booskii hooyo ayay u taagneed iyada waxay ahayd xaas la qabo maalin waxay dhul ka gadatay Suudaan wuxuu ahaa dhulkaas dhul beereed oo u dhawaa webiga Niil labadiisa qaybood waxayna ugu tala gashay in ay beerato dhulkaas waxay u dhiibatay oo ay ku aamintay walaalkeeda Calaa wayna ka qarisay ninkeeda iyo dhammaan dadka ku noolaa dunida mana aysan rabin in ay cid ogaato waxayna u sheegtay Calaa in uu dhulka muhiim u yahay waxayna ka rabtay in uu beero lacagta ka soo gashana uu u diro sidii ayuu samayn jiray lacagtiina wuu u diri jiray laakiin ma ogi waxa ku dhacay Calaa balse maalin waxa uu u baahday lacag dhulkii walaashiisa ayuuna kireeyay ninkii kireystay wuxuu yaqaanay Aisha in ay tahay walaashiisa Aisha way xanaaqday waxayna ka xanaaqday Calaa waxay ku tiri ii soo celi dhulkayga Calaa waxa uu u tagay ninkii kireystaha ahaa wuxuu ku dhahay ii soo celi dhulkayga laakiin wuu ka diiday mana uusan rabin in uu dhulka celiyo sababtoo ah waxa ay galeen heshiis warqadda heshiiskana way wada saxiixeen waxa ay saxiixeen Calaa iyo ninka kireystay muddo ay ku heshiiyeen ilaa iyo meeqa ayaad ku heshiiseen 3 sano 3 sano meeqa ayaa ka dhinneed 1 sano sano kadib dhulka walaashaada ayaad u celin lahayd dhulka mid weyn miya wuxuu ahaa ku dhawaad 2 hektar haa 2 hektar maxaad ku abuurteen marka waxaan ku abuurnay inta ugu badan khudaarta sida basal yaanyo bataati muus iyo kuwa aan soo koobi karin oo aad u fara badan adiga waxaad sabab u noqotay dhibaatada ku dhacday walaasha maxaa yeelay waxaad adiga samaysay darteeda ayuu ninkeeda ku furay ila ninkeeda markii uu ogaaday in ay dhul gadatay walaasha ayna ka qarisay wuu xanaaqay sidaas ayuuna ku furay walaasha Masar ayay timid si ay u shaqaysato maxaa yeelay baladkaas wuu ku xumaaday xaaladeeda kadib markii aad adiga dhulkeeda ijaaratay khilaafkiina wuu weynaaday ilaa 5 sano isma soo wicin miyaa labadiina aniga hal mar ayaan isku dayay in aan la xiriiro laakiin way iga diiday wada hadal iyo wareysi intaba way iga diiday in ay ila hadasho oo dhan way diiday ma barabin in ay maqasho mawduuceena waxa uu ahaa mid weyn aniga markaan dareemay in ay aad u xanaaqsan tahay waxaan isku dayay in aan la hadlo oo aan u sheego sida ay wax u dhaceen laakiin iyada ima dhageysanin kaliya waxa ay dhageysanaysay dadka banaanka hadalkooda iyo waxa ay u sheegaan sababta aad dhulka u kireysatay maxay tahay sanadihii hore shaqadeeda way fiicneed waxaan helayay faa'iido fara badan ma fahantay markaas aniga ma awoodin in aan jaamacad galo
jaamacad markaan bilaaway waqti waan u heli waayey sidii hore waxna ma u qaban karin sannadihii u dambeeyey si fiican ayay wax u soo saaraysay beerta ma fahantay aniga waan ku daalay inaan isku wada jaamacadda iyo shaqadaas waqtigaygana aad ayuu u koobnaa waxaan ku fikiray in aan qof ka kireeyo meeshaas oo lacagta aan ka soo qaado iyada oo diyaar ah okay yacni dareen ahaantaada maxaad dhihi rabtaa marmarsii maxaad ka dhiganaysaa maxaad rabtaa inaad dhahdo waqti xaadirkan muhiim iima ahan in aan soo hor fadhiisto kaamiradahan iyo dadkan hortooda waxaan rabaa oo muhiim ii ah in aan walaasheeda cafis ka dalbado si ay ii cafiso oo aan sidii hore ku naqanno iyo walaaltinimadeenna qaaliga ahayd maxaa yeelay waad u xiistay soo maahan aad iyo aad okay waxaan annaga u dirnay risaala walaashaad caaisha cabdirasuul waan arkaynaa sida ay jawaabteeda naqato iyo waxa ay ka dhahdo bal maxay dhahday aan fiirino qisadan waxay ka dhacday suudaan waxayna kala goysay wiil iyo walaashiisa yacni caaisha waa walaasha weyn walaalkeeda ka yar ayay ku kalsooneed waxayna u dhiibatay dhul ay gadatay iyada oo aan qof kale u sheegin xataa ninkeeda way ka qarisay asaga ayay ku aamintay si uu u beero dhulkaas lacagta ka soo baxdana oo faa'iidada ahna uu u diro sidaas ayuuna samayn jiray calaadiin oo walaashiisa ayuu lacagtaas u diri jiray xiriirkooda wuu wanaagsanaa walaalkeeda ka yar calaa dhulka wuu kireeyey wuxuuna ka kireeyey nin kale kireystihiina wuu diiday in uu dhulka celiyo walaashiisa way xanaaqday caaisha xilligaas waxba kama faa'idin dhulka oo heshiiska waxaa ka harsanaa 1 sano sidaas ayuuna ku go'ay xiriirkii u dhexeeyey caaisha iyo calaa ilaa 5 sano calaa maanta waxa uu u yimid stuudiyogan kalsooni uu ku qabo barnaamijkan in laysku celiyo asaga iyo walaashiisa oo aadka ay u jecleed wuuna u xiisay waa walaashiisa ka weyn aad ayay ugu saaciday daruufo fara badan waxayna ku saaciday waxbarashadiisa waxay ku saaciday guurkiisa sidoo kale waxay ku saaciday caafimaadkiisa iyo waxyaabo kale hadda waxaan qaabilaynaa caaisha waxayna fadhisaa stuudiyoga banaankiisa waxaan filaa inaad u jeedaan aan ku soo dhaweyno stuudiyoga caaisha أهلا وسهلا مع عايشة سودو عندوها أستاذ جورج إيه فديسو كسو دو برنامجك مركلك كسو دو برنامجك ما شاء الله وان كدوهاي إيغا ورن عافيمادكاغا سيديتا هاي الحمد لله آد بانو في عناهاي أديك مصر مياد كنوش هاي ها وان كنولهاي إلا إيا ميخا أياد مصر كنوش هاي إلا إيو 5 سنو 5 سنة أياد مصر كنوش هاي جبي جيدا كورن الحمد لله مكا شقيسا هالكان ها وان كشقيا إلمها إيغا ورن way fiican yihiin أديك مياي كولا جوغان haa gurigayga ayay ii joogaan يعني مصر مياي كولا جوغان haa masar ayay ila joogaan dabcan يعني سودان ما جوغان maya aniga ila joogaan عمرقودا واي مسا amiir 4 sano ayuu jiraa axmedna 9 sano aniga barnaamijkan waxaan ku gudbiyaa wanaag waa midaas hadafkayga bes in aan wanaag gudbiyo ma fahantay marmarka qaar waxaan ku bixiyaa lacag ayaan ku bixiyaa marmarka qaar waxaan ku bixiyaa jaceyl iscaafin iyo bini'aadannimo waxaa jira barnaamij kale lacag ayaan ku bixiyaa lacag laakiin midkan lacag ma ahan maxaa dhacay caaisha ma rabtaa in aad ogaato qofka kuu wacay adiga ayaan ku imaaday aniga ayaa kuu wacay laakiin waxaan kugu wacay qof kale dartiis adiga horey ma u daawatay barnaamijka musaamax kariim ma fiirsanayn in badan runtii hadda waxba kama ogid miya mawduucyada iyo waxa uu ka kooban yahay maya waxba kama ogi inta badan waxaan ku mashquulsanahay shaqo marka hore fiiri qofka kuu wacay
dib ayaan ka wada hadlaynaa shaashadda fiiri. halkan miyaad imaaday? ma taqaanaa? calaa. okay, aqoon miyaad u leedahay mise maya? waan aqaanaa dabcan, waa calaa. ilaa iyo meeqa ayaadan arkin calaa? in badan. 5 sano miyay ka badan tahay? way u dhowdahay 5 sano. way u dhowdahay. haa. asaga wuxuu kaa yaryahay 3 sano. sax. waxaadna tahay walaashiisa ka weyn. waad jecleed, waad saaciday, waxaad ku saaciday waxbarashadiisa, xataa waxaad ku saaciday in uu guursado. haa dabcan, laakiin dhibaatada dhexdeena taalo asaga ayaa sabab u ah. teeda kale Ustaad George, adiga ayaan kuu imaaday, adiga ayaan iigu wac barnaamijkan run ahaantii. laakiin asaga ayaa ku dalbaday. maya. barnaamijkan waa musaamax kariim. maya, macquul ma ahan. xataa haddii uu yahay musaamax kariim, ma rabi inaan arko wax kastoo dhaco, ma ku qanacsani arrintan. kuli barnaamijyada oo dhan ma ahan miyaa wax dhici karo? maya, aniga adiga kaama hadlaayo. waxaan ka hadlayaa arrimaha calaa ku saabsan, sababtoo ah waxa uu igu sameeyey ma ahan wax yar. dhibaato xooggan oo ii geystay, mana ahan waxa iloobi karo. bataatanba ma raba inaan aniga qisadiina waan ogahay. teeda kale waxaan la yaabanahay, muxuu iga soo daba doonay? Suudaan ayaan uga soo tegay, halkan miyuu igu yimid? asaga Masar ayuu joogaa. laakiin aniga beledkaas waxaan uga soo tegay asaga dartiisa iyo inaan arkin. waan ka xumahay Ustaad George, aniga ma rabi ninkaan inaan arko, mana rabi inaan igu wacdo. ilaa iyo 5 sano ayaad isgoyseen. adiga dartaa ayuuna u imaaday. hal mar ii dhegayso. asaga waxa uu igu ka dhiibay fariin in aan ku akhriyo ayaan rabaa. Ustaad, aniga adiga dartaa ayaan waa kaaga mahadcelinayaa midaas. wallahi waad ku mahadsan tahay. mana u imaanin aniga in aan qof cafiyo. ma rabi qof inaan cafiyo. yaa kugu qasbay inaad qof cafiso? adiga waxaad igu dhahday barnaamijkan waa musaamax kariim. waa musaamax kariim, laakiin khiyaar ayaad leedahay. waana ixtiraamayaa aniga go'aankaaga. maya, waan ka xumahay. aad ayaan uga xumahay. waan ku faraxsanahay imaanshahaaga. aniga waxaan ku dhihi lahaa ha isku kalifin mawduuca. ma dhegaysanaysaa fariinta? maya, ma rabi inaan wax dhegaysto. xataa aniga dartayda. maya Ustaad George, waan ka xumahay, ma dhegaysan karo. si dhib ayaad ku imaaday halkan. waan ku imid dhib, laakiin adiga dartaa ayaan barnaamijkan u imaaday bes. waxaan u maleeyay barnaamijku inuu yahay mid dhulkaad isku dagaasheen aaway. ya dhulka Suudaan aad iskugu dagaasheen aaway. khalaas, dhulkaas way u dhammaatay. sidee ugu dhamaatay? dhulkaas way u dhammaatay, maxaa yeelay waa la dayacay. wax kastana waan ku khasaaray. adiga ayaa iskale dhulkaaga. maya, wax kasta waan ku khasaaray. laakiin waa la kireystay oo kaliya. maya, kuma arkin waxaanan dhibaatooyin fara badan ahayn. waa la ijaartay. heshiiska 1 sano ayaa ka dhinnaa. kadibna waa lagu soo celin lahaa. asaga wuxuu igu sababay dhibaatooyin fara badan oo aanan ahayn dhulkaas iyo lacagtaas. wuxuu ii geystay dhibaato xooggan, adigana ma bedeli kartid. yacni wuxuu igu sababay in lay furo, anigoo weliba hore u saaciday. waan ogahay waxaasoo dhan. asaga ayaa ii sheegay. ma jeceshaha inaad dhegaysato fariintiisa? wuxuu kuu soo qoray fariin aad u yar. kadib gadaal ayaan ka wada hadlaynaa maadaamaad timid. aan akhrina marka hore haddii aad inoo fasaxayso. caaisha, walaasheeda qaaliga aheedee, waan kuu xiisay. hadal walbo aan ku dhaho abbaayo kuma cabiri kara dareenkayga sida aan kuugu xiisay ee xaddhaafka ah. sidoo kale ma awoodi karo inaan kuu sheego sida xaddhaafka ah aan ugu shalaayay wixii aan kugu sameeyey. waan ka xumahay run ahaantii. raaligelinta ma waxay ii soo celinaysaa wixii aan khasaaray? waxyaabaha igu sameeyey raaligelin iima soo celin karto. hadal la soo qorayna waxba kama bedeli karo wixii igu dhacay. waxaan waayay lacagtayda, dhulkayga iyo gurigayga. sidoo kale waxaan waayay ninkayga. yacni qof sidaasoo dhan igu sababay, lagama yaabo si fudud inaan ku cafiyo. run ahaantii waan ka xumahay waxa uu igu sameeyey. hadduu ahaan lahaa qof kale waa ka aarsan lahaa, laakiin asaga waa walaalkayga iga yar. qof kale hadduu ahaan lahaa waxaa ku samayn lahaa wax walba uu igu sameeyey. xataa waxaan la aadi lahaa maxkamad oo xabsi ayaan geli lahaa. laakiin dhibkii haysto asaga waaba walaalkay, mana awoodo inaan waxba ku sameeyo. bes nolosheedoo keliya ayaan ka saaray, mana rabo araggiisa. wuxuu ku dhahay, kalsoonida aad aniga i siisay oo kale ma jiro qof aad siisay. aniga hubaashii sidaan kuu dhaawacay ma jiro qof kuu dhaawacay oo dunida saaran. laakiin wallaahi dunida ma jiro qof dhedhamiyey shalayda aan aniga dhedhamiyey oo kale. maya, ma rabo. waan ka xumahay run ahaantii. ma rabo inaan hadal kala maqlo. wax kasta waan waayay, hadalna waxba iima soo celin karo. sidayda ha igu dhaafo oo keliya. suudaan asaga ayaan uga soo tegay, halkaana ma uga tagaa? maya, daruuri ma ahan inaad ugu tagto.
ee ma rabtid miyaa inaan kuu kamilo warqadda maya ma rabo inaan maqlo kelmad asaga ka socoto niyadna uma haayay hadalladiisa inaan dhagaysto khalaas waan xiray mawduucaas xaqiiqatan ma awoodo inaan dhagaysto wax calaa ku saabsan xataa ehelkiina waxay rabaan inaad heshiisaan oo sidii hore aad ku laabataan laakiin aniga ma rabi wax kastana waan waayey waxaan waayey aniga lacagtayda waxaan waayey oo kale laakiin asaga wuu kuu soo celin lahaa ma wuxuu ii soo celin karaa gurigayga oo iga dumay weliba asaga dartiisa la ii furay waxaan ahay garoob ciyaalkaygana aabbahooda lama kulmaan arrintaasna ma ahan mid sahlan wuxuu sabab u noqday in aan dhaawac weyn dareemo okay wax yar ma dhagaysan kartaa wax yar xataa ma rabo inaan dhagaysto xataa hal mar xataa ma dhagaysan karo ustaad George waxaan rabaa inaan baxo waad bixi laakiin isdeji okay yacni dhib ayaad ka soo martay imaanshahaaga waxaadna ku soo baxday taxi wax yar isdeji waan ognahay wax walba dhib ma lahan waa iska caadi aniga waan ku faraxsanahay inaan kuu imaado oo aan kula kulmo mana jiro wax iiga farxad badan adiga kulankaaga allaha ku sharfo barnaamijkan waa barnaamij qaas ah waa musaamax kariim waa barnaamij la xiriira qalbiga yacni adiga haddii aad xiratay khalaas waan xiray qalbigayga haddii aad xiratay weligaaga inaad la hadashid ma rabtid miya maya waan ka xiray qalbigayga mana rabo sheeko ku saabsan calaa inaan dhagaysto aniga xataa haddii ay ku dhahaan hooyo iyo aabba iska cafi walaalkaaga hooyo iyo aabbo madaxa ayay ii saaran yihiin aniga run ahaantii laakiin qof ii khasaariyey oo dhibaato badan ii geystay oo gurigayga burburiyey ma cafinaayo xanuunkaasna ma ahan mid ay ilmahayga aabala'aan ayuu dhigay mana la kulmaan aad waxaan uga xumahay ilmahayga oo aabbahooda la kulmin khasaaradaasoo dhan waxaa ii geystay Calaadiin iweydii hal mar dhegaysa hadalkiisa hana u jawaabin iska bax bes u ogolow halkaas mar adigana waxaad tahay walaashiisa ka weyn soo maahan haddiiba uu og yahay inaan ahay aniga walaashiisa ka weyn waxa uu igu sameeyey iguma samayn lahayn calaa run ahaantii caaisha axmed hal mar dhegayso kuna dheh macsalaama calaa ku soo dhowow waxaad haysataa 1 daqiiqo hadal fursaddaanna ka faa'iidayso oo dheh wax walboo aad rabto inaad dhahdo maxaa yeelay waxaan arkaa in ay caaisha hadalkaaga rabin in ay maqasho laakiin dheh wixii aad dhihi lahayd hadal abaayo sidee tahay codkaaga lama maqlo ee kor u qaad waxaan inta u imaaday dartaa haddii aad adiga rabto inaan suudaan u laabto waanu laabanaa bes laakiin hal mar i dhegayso waan ogahay inaan khaldamay adigana waad ilowday inaan ahay walaalkaaga dhiigga ayaan wadaagnaa maahan inaad qalad dartiis ii ilowdo wax kasta oo dhacana waxaan ahay walaalkaaga adigana waxaad tahay walaashayda maya khalaas haddii aad og tahay inaan aniga walaashaada ahay yacni waxaad igu samaysay igumadan samayn lahayn dhulkayga ma iibin lahayn aniga waan ogeyn mana igu sababi lahayn dhibaatooyinka aan lugaha la galay adiga wax walba ayaad iga lumisay inta aan noolaa wixii aan tacbaayey ayaad iga khasaarisay oo dahabkayga ayaad iibiyey aniga lacagta aan ku iibiyeyna dhul ayaan ku gatay adiga ayaana gacanta kaa saaray markaan dhulka iibsaday cid kale anigoon u sheegin waxaana ku dhahay dhulkaas igu shaqeey adigana waa dayacda dhulka aniga kuma dhihin ma khaldani waan ogahay inaan khaldamay aad iyo aad ayaan uga xumahay wixii kugu dhacay yacni inaad ka xumaato maxay ii soo celin kartaa ma ninkayga ii soo celin kartaa mase ilmahayga aabbahooda ii soo celinaysaa haa waa runtaada inaad khasaartay waan khasaaray wax kasta ayaana waayey waxaad dumay gurigayga waxaad igu samaysay adiga cid igu samaysay ma jirto iga raali noqo waan ka xumahay abaayo oo raali noqo hadda maxay ii qabanaysaa maxaan sameeyaahay abaayo macaan ii sheeg maxaan sameeyaa sidaan la igu dhaafo keliya ma kugu dhaafi kari macquul ma ahan ma sidaan igu daysid calaa adiga sabirka aad haysay aaway abaay sabirkan fiiri khalaas fadhiiso calaa فاكرة الصورة دي؟ midkee calaa ah sabirkan waa midkaan midkaan ah haa wuu isbeddelayaa wuu isbeddelay runtii adiga midkaan miyaa maya waa midkaan haa waa midkaan waqtigan shuluq ayaad ahayd adiga sabirka qabo wax ka dheh sabirkan sawirkan waa sawir iska caadi ah waxaana iska qaadnay maalin ciid ah waxaan ahayn walaalo isdaryeelo oo aad isku jecel xilligan laakiin way u dhammaatay hadda
xusuusaheena wanaagsanaa adiga ma iska ilowday aniga ma iloobi kara qisooyinkii quruxda badnaa ee aad iiga sheekayn jirtay yaraanteena mana ahan wax aan iloobi karo adiga ayaa dayacay xusuusaheena quruxda badnaa marka hore maxaad u xasuusan weysay qisooyinka quruxda badan markaad qiyaamaysay khalaas ma rabo in sir u yimid iyo in kale laakiin hadda waan cafinayaa adiga dartaa ma cafisay haa waan cafiyey caaisha way cafisay مش مصدق يلا نقف بالنص تفضل يا عيش تفضل يا عيش هذا عون خلي كمل تعالي بالنص تعال هنا تعال هنا ارجع عايشة waa ka xumahay abaayo wixii kugu dhacay dhib ma lahan khalaas dhib ma lahan waan ku cafiyey hadda waxayna ahayd wax ii qoran oo qadar ah laakiin naftaada ka taxadar waan dareemayaa inaad adigaba ka xun tahay wixii dhacay waana ogahay inaadan ku talagal iigu samaynin laakiin waxaa muhiim ah inaanba ogaanay qaladkaas inuu ahaa daciiftinimadeenna calaa kulli xaal naftaada ka taxadar marba haddii aad ii cafisay abaayo ma laga yaabo in aan mar kale wax ku fududaado caaisha hadda waad cafisay waadna is aragteen ma waxaad rabtaa inaad sii wada jir ha u baxdaan insha allah waxaan idin leeyahay mabruuk مبروك ها ارتحت شوي كان متوتر عايشة مبروك يا حبيبتي تفضل تعالي هلا انتوا بتطلعوا سوا مع بعض شكرا خذوا الصورة علاء خذ الصورة يلا مع السلامة والله ما aaminsanin in ay sidan ku dhamaanayso maxaa yeelay Aisha marka hore aad ay u adkeed mana jeclaysanaynin in ay maqasho hadalkiisa على كل حال waxay ku dhamaatay si wanaagsan ween heshiiyeen insha Allah waxaan u rajeynayaa in ay sidaas ku sii socdaan xiriirkoodana uu ahaado mid qurux badan familkoodana ay u laabtaan iyaga oo faraxsan waa inoo kulantay dambe iyo barnaamijkeena al musaamax kariim